sidee ayuu u dhacay dilkii daldalaadda ahaa ee lagu fuliyey Saddam Hussein. قررت المحكمة الحكم على المدان صدام حسين المجيد. saacaddu markii ay ahayd 5 aroornimo ee xilliga Afrikada Bari ayaa la furay albaabka qolka uu ku xabisnaa Saddam Hussein. taliyaha loo xil saaray kooxda daldalaadda fulinaysa waxa uu askartiisa ku amray in ay dibadda u baxaan. isaga iyo Saddam ayaa isku soo haray. waxa uu sheegay in saacad gudahood lagu fulin doono dilka daldalaadda ah. warbixintan waxa aynu ku eegaynaa waxyaabo laga yaabo in aanad ka ogeyn sida uu u dhacay dilkii maalinta Iidda lagu fuliyey madaxweynihii hore ee dalka Ciraaq Saddam Hussein. mar kalena waxa aynu fiirin doonaa warqad uu xaaskiisa u diray mid ka mid ah askartii Mareykanka ahaa ee dilka fuliyey. isagoo xaaskiisa uga qisoonaya waxyaabaha mucjisada ula muuqday ee uu kala kulmay daqiiqadihii ugu dambeeyay ee nolosha Saddam Hussein, sida dhoola cadayntii Saddam uu muujiyey ilaa iyo inta ay naftu ka baxaysay, dalabaadkiisii la yaabka ahaa ee dhimashada ka hor iyo ku dhawaaqista shahaadada in ka badan hal mar. waa waxyaabaha aynu ku eegi doonno warbixinta tan. dhambaalka uu askarigani u diray xaaskiisa waxa uu ku bilaabayaa in rumayso Saddam waxa uu ahaa nin mutaystay in la ixtiraamo. waxa uu yidhi Saddam markii loo sheegay in saacad gudaheed lagu fulin doono dilka daldalaadda ah, waxa uu dalbaday in loo keeno quraac nooceedu yahay bariis iyo hilib digaag oo shiilan, biyo diiran oo malab lagu daray, iyo nooc cabitaan oo yaraantiisii jeclaa. askariga oo hadalkiisa sii wata waxa uu yidhi saacaddu markii ay ku istaagtay 5:15 subaxnimo, Saddam waa uu weyse qaatay waxaanuu dhaqay wejiga, gacmaha iyo lugaha. waxa uu dhinaca kaga fadhiistay sariirta qolka uu ku xabisnaa, waxaana uu bilaabay in uu akhriyo kitaab qur'aan ah oo hadiyad ahaan ay xaaskiisu ugu keentay. inta ay waxaasi dhacayaan, kooxda dilka oogaysa waxa ay ku mashquulsanaayeen diyaarinta xadhigga daldalaadda. goorsheegtu markii ay soo gaadhay 5:45, Saddam waxa loo qaaday goobtii ay ka dhacaysay daldalaaddu, halkaasi oo ay joogeen garsoore, wadaaddo, xubno ka socda dawladda iyo sidoo kale dhakhtar. Saddam Hussein waxa uu diiday in laga xidho wejiga si uu indhaha ula sii raaco Baghdadi uu jeclaa. inta aan falkan daldalaadda alla gudagelin, waxa Saddam la weydiiyey dalabkiisa ugu dambeeya, waxaana uu yidhi waxaad ii keentaan dareyskayga. askariga ayaa ugu jawaabay waa lagu fulinayaa dalabkaaga, laakiin waa in aad raacisaa sababta. waxa uu yidhi cimilada Ciraaq arooryada hore waa mid qabow, saasi daraaddeed ma rabo in qarqaryada dhaxanta ka dhalanaysa ay shacabka Ciraaq u qaataan in hogaamiyahoodu uu daldalaadda ka cabsanayo. 6:01 daqiiqo ayaa la gudagalay fulinta daldalaadda, halkaasi oo caalamku si toos ah ugala socday. mid ka mid ah mas'uuliyiinta ayaa Saddam waxa uu ka hor akhriyay xukunka dilka. Saddam waxa uu mar kale dalbaday in wejiga aan dabool laga saarin. askarta dilka fulinaysana waxa la rumaysan yahay in midkood uu ahaa Mareykan asalkiisu Yuhuudi yahay, waxaana xadhigga Saddam lagu daldalayay uu u sameeyey 39 guntimood oo uga jeeday 39kii gantaale ee Saddam uu ku garaacay Tel Aviv sanadkii 1991. askariga dhacdada tan uga qisoonaya xaaskiisa waxa uu leeyahay waxa la yaab igu noqotay sida qof uu dhoola cadayn karo iyadoo uu og yahay in daqiiqada gudaheed uu macasalaamaynayo dunida tan. Saddam waxa uu diiday in uu liqo kiniino loogu sheegay in ay yihiin kuwa cabsida ka yarayn kara. askariga sheekada tan la wadaagaya xaaskiisu waxa uu leeyahay waxaan ku xaqiijinayaa in Saddam uu muusooday, waxa aad mooday in uu eegayo meel aan anaga noo muuqan. Saddam waa la daldalay. waxa dhacay aamusnaan buuxda. muddo kadib waxa goobta soo galay dhakhtarka oo baaritaan kula kacay meydka lalmanaya, laakiin markan wadnaha Saddam waxa uu joojiyey garaaca oo dhan. daqiiqada kadib waxa xadhigga qoortiisa ku xidhan lagaga jaray mindi, iyada oo markii ay saacaddu ahayd 6:14 meydkiisa lagu riday naxash goobta ku diyaarsan. askariga Mareykanka waxa uu leeyahay waxa aan ku dhawaaday in aan isaga baxo goobta ay daldalaaddu ka dhacaysay, maadaama uu adkaysan waayay waxyaabaha mucjisada ula muuqday. waxa aan isweydiinayaa sida uu qof u dhoola cadayn karo iyadoo uu og yahay in ilgibirsiyo gudahood uu macasalaamaynayo dunida tan. balse waxa uu yidhi saaxiibaday Ciraaqiyiinta waxa aan hore uga maqlay in qofka shahiidka ah uu gelayo jannada oo aanay xanuun ku hayn dhimashadu. isagoo xaaskiisa la hadlaya ayaa waxa uu leeyahay waxay annaga noo yaqaanaan gaalo, waana sababta ay u rumaysan yihiin in Saddam aan siinay hadiyaddii ugu qaalisanayd.